muqdisho ay ka dhacaan qaraxyo iyo dhibaatooyin kale haddana nolosha dadka magaalada waxaa ka jira isbeddello kala duwan mana jirto wax saameyn ay ku yeelatay horumarka bulshada caasimadda waxaa ka jira nolol caadi ah xeebaha caasimadda muqdisho xilliga habeenkii ah waxaa ka jira nolol ka duwan midda maalintii ee magaalada dad raadinaya jawi deganaansho oo ka nasanaya buuqa iyo kulaylka maalintii ayaa xilliga habeenkii ah waxa ay tagaan xeebta badda Liido waxa ay qaadanayaan neecawda leedha iyo jawiga qabow ee xeebta xilligaasi maqaayado iyo hoteelo ayaa lagu soo kordhiyey kuwii hore ee hareeraha xeebta ku dhisnaa dhalinyaro qoysas asxaab iyo lamaanayaal oo ka kala yimid xaafadaha magaalada muqdisho ayaa taga badda xeebta Liido xilliga habeenkii ah waxaana ay doontaan sheeko shaah iyo dalxiis wallahi waa jawi macaan oo buuq lahayn oo qaylo lahayn oo jawi nabada adiga aad macnaha si kalsooni ku jirto maxay hayto hawo macaan leh ma sha Allah aad uga helaa xeebta habeenkii ma iska lugeeyaa halkaas taga xaggan taga kadib meelahan shaah ka sii caba kadib si nabadan guriga ku taga ma sha Allah dhalinyarada ku damaashada xeebta Liido ayaa ii sheegay in jawiga ka jira ay ka helaan deganaansho marka ay dib ugu laabtaan guryahooduna ay dareemaan farxad waaw ma sha Allah marka inta aan ka baxo gurigaygu ee tago waxa waaye aad baan u seexdaa wada fiican baan qaataa sababtoo ah waxa waaye jawi degan ku jira waxa waaye hawo fiican baan qaataa xamar markii aan hadda joogno gudaheeda waa aragtay waa kulayl guriga muraxada ka shidan laakiin meeshaan hawaan caadi ah ka socoto deganaanshaha ka jira halkan waxa ay soo jiidatay in dadka imaanaya ay iska qaadaan sawirro waxaana taasi ay shaqo abuur u noqotay dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda qaadista sawirka hobigayga noqday inaan kaamirista noqdo photographer oo aan caan ku noqdo kaamiradeyda oo aan aniga xirfad qaas ah u yeesho kaamirada oo aan noqdo xirfadle ku ganacsada kaamiradiisa xeebta Liido habeenkii waxaa ku soo kordhay fursado dalxiis oo aan horey ugu jirin doon dalxiis oo markiiba ay ku dalxiisi karaan 40 qof oo leh maqaayado iyo adeegyo kale ayaa laga hirgeliyey halkan waa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxa ka jirta nolol ka duwan noloshii hore ee Muqdisho lagu tilmaami jiray waxaan joognaa xeebta Liido waxaan dul saaranahay doonyaha lagu dalxiiso ee laga hirgeliyey xeebta Liido waqtigu waa habeen waxaan dusha ka saaranahay mid ka mid ah doonyaha halkan lagu damaashaa tago xilliga habeenkii ah jawigu waa uu ka duwan yahay waqtigii hore horta waa markii ugu horeysay aan doon badda dhexdeeda ku jirta aan ku dalxiis tagaayo waan habeenkii ugu horeysay aan imaado Liido haddana waa ku faraxsanahay xilli habeen awood macaan tahay jawigu degan yahay aan waqti ku qaato meeshaan milkiilaha doonta dalxiis ee xeebta Liido ka howlgasha ayaa ka waramaya adeegyada dalxiisayaasha ay ka heli karaan doontaasi aniga waxa la dhahaa Cabdiqaadir Maxamed Ibrahim aan ku dhashay xamar xeebtan Liido ayaan ku soo koray dadka u soo dalxiis tagi jiray oo soo dabal tagi jiray marka xeebta marka imaadana waxaan arkay wali inaan dooman yar ku socono dadka la qaado la soo wareejiyo la soo celiyo aan lahayn raaxo iyo fadhi iyo cunto waxaan lahayn markaas aniga yar saaxiibkeyga Maxamed Cabdirasaaq aan isku darsanay ra'yi oo ku fikirnay inaan sameeyno baashana maalgeliyay waa tana maanta doontii waxaan sameeynay doon oo maqaayad ah oo la yiraahdo La Lanterna af Soomaaliya magaca Faynuusta Liido waaye habeenkii ayada meesha ka shidan 40 qof ay qaadaa fadhi leedahay suuliye leedahay qolka dumarka oo ku dukadaan oo dharka isaga bedelaan leedahay dhinaca waxaan joogaa xeebta Liido waxa aan hayaa shukaanta ama isteerinka doonta La Lanterna oo ah doon dalxiis oo magaalada Muqdisho la keenay oo badda xeebta Liido markaasi laga hirgeliyey waa mid ka mid ah habeenada ay ugu farxadda badan dabcan bariga ayaan ka soo warrami jiray waxaan idinka ka soo warramayaa badda dusheeda Cabdiqani Daahir Cumar oo ka mid ah dadka ku dalxiisaya xeebta Liido ayaa qaba in caasimadda lagu soo kordhiyo fikrado kale oo maalgashi ah
saacaddan waxaan joogaa oo aan siina u soo aaday xeebta Liido waxaan kor saaranahay waa doon dalxiis oo lagu soo kordhiyay caasimadan caawa aan ku dalxiisayna ma ahan meel kale waa caasimadii magaalada Muqdisho waxa ayna rabtaa fahan iyo qof walba wixii khibrad uu haayo inuu ku soo kordhiyo marka aad aan ugu faraxsanahay caawa waqtigeyga inaan meeshan ku qaato halkaana aan joogo Cabdicasiis Ibrahim Axmed, TV-ga Universal magaalada Muqdisho.